amniga bunt galmud ku soo dhow SBC wasiirka amniga galmudug waa dhawaan saaxiibayaal waa maasantiin sida waragta shirka soo gabagabay warmatiyeedka shirkan shiraan caadi ahayn buu ahaa runtii shir dadka Soomaaliyeed labeentoodii iyo waxgaradkoodii ay ka soo qayb galeen bay ahaayeen shanta Soomaaliyeed laga yimid dalka dibadiisa lagu soo bandhigay mawaadiic runtii taabanaya xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo la saadaalinayo afarta sano soo socota 2025 sida Soomaaliya ay ekaan doonto ayuu ahaa waxaana lagu qabtay dhul Soomaaliyeed waxa lagu qabtay caasimadda Puntland ee Garowe runtii oo nabad ah oo dadka Soomaaliyeed oo dhan oo qaar markii ugu horeysay ay yimaadeen ay ahayd laga helay dadkii cabursanaayo oo xamar joogay ama dad maaragtay deegaamo kale oo kooban oo aan nabadoodu si ay tahay joogay dhammaan waxay dareemeen runtii si xorriyadana inay meel nabadana inay yimaadaan si nabadana si xorriyad leh ay u hadlaan mawaadiic muhiim ah in intii hore warbaahinta loo marin jiray labada dhinac ee federaalka iyo mucaaradku meesha laga yiri muhiim bay sidaas face to face ka iyadoo face to face ah in la isiraado laakiin waxa ka soo baxday xal baa ka soo baxay naftarkeedii awal waa loo kala sheeka marin jiray awada la isku marin jiray nin walba saankii kale u galay ma aragtay ayaa la dhihi jiray laakiin hadda tani waxay ahayd kulamo ka dambeynaya iyadoo sidaas la isiraado ayaa haddana kulamo guryaha la isugu tagayay la isbooqanayay la doodayay runtii waxayna soo dhaweysay xalkii madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Galmudug ay sheegeen oo ahayd in xaaladii la isku hayay faraj uu u dhow yahay in farajkeedii meel fiican bay maraysaa kolley intay madaxdu noo sheegeen ka badan ma sheegi karno laakiin runtii mutafaa'iliin iyo optimistic weeye in xaaladii iyo ceegsanaantii jirtay siyaasadeed in xal loo helay xalkeedii inuu dhow yahay dalkuna uu doorashaadi doono laakiin se waqtiga doorashada ka dhiman lagu gaari karaa mise waqti kale qaadan karaa waqtiga dabcan waqti waa qaadanaysaa laakiin muhiim waxa ah in halka bilow ka dhiman in shaqadu ay bilaabato garaangirtu inay rogmato laakiin way qaadanaysaa dhowr bilood oo kale ka dambaysa shirka madaxweyne dani ku baaqay isagu shirkada waa shirka maayo madaxda federaalka iyo madaxda dawlad goboleedyadu oo intii ka qayb gashay shirkii 17 September tii la soo dhaafay intii ka qayb gashay mar labaad inay isku yimaadaan waxyaalihii shirkaas konseenadii ka soo baxay dareenadii laga qaaday iyo tabashooyinka ka jiray dhammaantood waa 3 iyo 4 waa wax yar oo kooban inta kooban haddana in xalkeedii la isku helo kadibna la amba qaado doorashada waxaa jirtay in agaasimihii hore uu soo hadal qaaday arrinta Hiiraan adigana xildhibaan qaran baa tahay arrintii gada laga hadlay arrimahaas oo kale Galmudug xageedu ka taagan ma anagu waxaan ka taaganahay waxa laalay wixii xal in laga gaaraan ka taaganahay waxaan aaminsanahay gado inay dawlad goboleedka Jubbaland ay ka tirsan tahay in dalku federaal yahay in maaragtay ciidamadii qaranka qayb ka mid ah ay joogaan marka waxaan aaminsanahay in xal waa laga gaari karaa kismaayo joogaan ciidamada dawladda federaalka ay joogaan waxay joogaan Galmudug ay joogaan meel kasta ay joogaan taas macnaheedu ma ahan meel kasta ciidanku joogo inay laakiin konseeno kale iyo waxyaalo la kala qabaa jiro xagga maamulka ku saabsan marka aniga waxaan aaminsanahay in waxaas oo dhan xalkooda ay fududahay inta Hiiraan maadaama daris la tihiin arrinta Hiiraan runtii waa arrin murugadeeda leh waa shacab qaba dareen ka qaaday arrimo ayagu ay u gaar ah oo ay tabanayaan marka iyadana waxaan rajaynayaa in lagu daro waxyaalaha la xalinayo oo xalkooda la gaaro dalka Soomaaliya uu u dareero doorasho iyadoo kulli qof wax tabanayaan oo sajirin dadkuna ay diyaar wada yihiin waxa ka baxay Hiiraan beledweyne waxa ka dhacaysa doorasho ka dhacaysa marka waa qasab in waxyaalaha hadda meeshaas ka jireen la xaliyo waayahay gabagabada maxaa ka filaysaa rajadaada intee la ka qabtay inay hirgalaan qodobada rajada runtii labada madaxweyne hadalkoodii aniga maaragtay cuskanayo tix raacaya rajo fiican baan qabaa waana ka fiican runtii shirka marka la iimaanay 3 shakoor iyo maanta sida lagu kala gadoomay way fiicnaayeen waxa weeye hadaladii iyo kulli iyo cudur darra meesha ka dhacay waa la cudur daartay hadallo hore loo yiri xanaf iyo dhibaato maaragtay lahaa waxa yimid yididilo fiican oo ay labada madaxweyne hadda noo sheegeen waxaan rajaynaynaa insha Allah maalmaha soo socotana inay meel ka si fiican ay tagto way dad badan baa waxay leeyihiin 1991 baa lagu celiyay ama 91 in lagu laabanayo taas maxay isla ma 91 lagu laaban maayo haddaan 90 dhibkii 99 jiray ma ku laaban karo wuxuu isugu laaban karin dalku waa federal hadda hatta haddii dhibaato dhacdo oo xamar kursiga la isku yaalla ay dhacdo afgooye waxaa ka taliya South West State balcadna waxaa ka taliya Hirshabelle marka runtii dhibaatadii oo kale ma dhacayso insha Allah mana dhacayso hadda waaba xalkeedii waa dhow yahay 8 February way maxaa dhacay hadii laga 8 February waxaa dhacaya in doorasho ay socoto waa qasab in 8 February doorashadii dhacday oo kale in meel kale loo asteeyo magaalada Muqdisho ay dhacdo
oo iyadoo xildhibaanadii la soo doortay 329 labada aqal ay diyaar u yihiin inay doortaan marka runtii waxaan rajaynayaa aniga hadda mutafaa'il baan runtii aad iyo aad baan iyada diilo fiican baa ii muuqda